gudoomiyaha guddida baarlamaanka arrimaha dibadda iyo xubnaha ku jira maxay guddidaba oo halkan maanta nagu marti qaadina nagu nimaadno aniga iyo wasiir ku-xigeenkaygu saan ugu warrano waxaan uga warranay shirkii maalintii dhawaato ka dhacay Dubai iyo heshiisyadii aan soo saxinay ka soo baxay waxaan kaloo iska wareysanay guud ahaan siyaasaddeena dibadda iyo duruufaha maanta inagu xeeran iyo sidaan oo wada shaqayn lahayn waanu isla afgaranay aad baan uga mahadcelinay oo mahadsantahay assalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim horta waxa laga hadlayaa waa dekada berberana Soomaaliland bay ku taallaa waxaana maareeyo xukuumadda constitution-keena iyo dastuurkeena ka federaalku ma xukumo cid kale oo arrinka inuu qabsan kartaana ma jirto waan ka warhayaa warqadda insha Allah anna warqad kale ayaan ka dabageyn doonaa oo mataqaana aanu mowqifkeena aanu ku muujinayno xaqiiqdu waxa weeye Soomaaliland waa wadan jira oo dawlad leh oo baarlamaan leh oo madaxweyne leh oo isagu ka taliya amurihiisa cid ka talisa oo kale ma jirto haddii aynu cid heshiis la gelin waxaanu kula gelaynaa sharcigeena kula gelaynaa cid kale sharcigooda kula geli mayno adeer heshiiska wax mugdiya oo ku jira ma jiro heshiiskii hore innakiyo aynu Dubai wada galayna waa sidiisii heshiiska imka qoladan la galay waxa weeye shareholder agreement baa la yiraahdaa isagu wuxuu ka hadlayaa shares laakiin concessions iyo terms waa kuwoodii way sidoodii weeyeen noqonayso wada hadaladii u dhaxeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya ee ka qabsoomay dawladda Djibouti maxaa ka jira arrintaas wada hadallada inaynu la gallo dee waarinkii baarlamaanku baasgareeyay dawladahaana aynu qaadanay kama inaan noqonin laakiin waqtigan xaadirka duruuftiisa ama xaysa in la wada hadlaa ma jirto marka dub baan u dhignay bil baan dub u dhignay wada hadalladii marka bisha ay dhamaatana waynu eegaynaa duruufta marba siday tahay inuu la bilownayo in kale